wargeyska loo yaqaano Addis Standard ee ka soo baxa dalka Itoobiya ayaa maanta daabacay inay Kenya marti gelinayso kulan u dhaxeeya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaan Madoobe iyo gudoomiyaha ururka ONLF Cabdiraxmaan Mahdi Maadey markaasoo khatar ku ah waa sida uu jaraa'idku daabacay amniga dalka Itoobiya isla markaana ay Itoobiya walaac badan ka muujinayso hadaba afhayeenka ururka ONLF Cadaani Hurmooge oo arrintaas ka falceliyay ayaa wuxuu yidhi jira warkaasi waa war malmaluuqa weeyo idaacaddan dhowr jeer hore maxaa journalkan Addis Standard dhowr jeer hore warar maartay ku jira ku taanuna yar xuluuleysi oo geedo hoosta laga soo bixiyo la malmaluuqay bay hadda ka hor sheegeen marka war mareegu gudoomiyaha jabhadda halgama Cabdiraxmaan Maadey wuxuu aaday Nairobi shir 6 bilood ka hor ku marti qaadnaa buu tagay oo shirka la yiraahdo local peace la yiraahdo oo caalami oo wadamada deegaanada localada adduunka ee laga sameeyay nabadda tusaalayaashoodii oo hay'ada caalamiga iyo UN-ka iyo dawladda weyn gareynayeen oo la ugu marti qaaday oo madax badan oo Soomaaliya lagu marti qaaday oo gobollo Soomaaliya lagu marti qaaday oo dalalka Geeska Afrika lagu marti qaaday oo meelaha dagaaladu ka dhaceen lagu marti qaaday oo Suudaaniyiinta iyo meelo kala duwan marka wariska malmaluuqa oo malmaluuqday baa mid labaad annaga yaa nahay oo na faanahay Soomaalida nahay dadka Soomaalida waxa naga dhaxeeya ka soo bilow Djibouti ku eedo Nairobi iyo Kenya xarbaan cid armaan la kulmayna Addis Standard iyo aday Abasiiniyan ku xaroonayaan ama Ethiopian ku xaroonayaan ama Xabashi ka xaroonayso ama waaxid kale oo baaburti oo meelaha ka soo ruxleeyay ka xaroonayo isaga u taala xarbaan nahay waanu la kulmaynaa urur gobonimada urur dimuqraadiyad ay xuquuqda dadkooda ay ka talintooda islaamkooda jiritaankooda horumarkooda dagaalamayaan min nafiisan oo lama fahmin dhanka kale Cadaani ayaa faahfaahiyay kulankan ay yeesheen Axmed Madoobe iyo Cabdiraxmaan Mahdi Maadey waa la kulmi karaa waxa weeye gobol Soomaaliya oo aad u jecel lahay oo ehelkana degan yahay oo cilaaqaad ijtimaaci ah cilaaqaad bulsheed ku taariikheed iyo dad badan oo dadka naga jooga marka waan kulmi karaa madaxda Soomaalida waan kulanay waan ku kulanay madaxda gobolada Soomaalida oo dhan madaxda federaalka marka anagu dadka Soomaalida ka xaribanay Axmed Madoobe waa la kulmay iyo gobolada kale madaxdooda taasina cid ku caaroonaysa iyada garanaysa warigeena Soomaalida taa la kulmi jiray markaan jiraad ahayn markaan qarsoodi ahayn markaan dibadda joognay markaan dalalka Geeska Afrika kulmayno halka Itoobiya soo booqdaan inta waa kulmayn marka issue ma noqon karto issue noqon karo meesha dadka Facebook-i laga hadlo qayrta ku dhacdana minniin midda kale arrinta Syria ama arrin shacabkanaga waxa dhastan Syria waa kala kulanaa laakiin mas'uul Soomaaliya aan la kulanay qooniyo kismaayo dadkiina la kulanay xabar dadkiina la kulanay arrin Syria ma aha oo nabadda Geeska Afrika iyo horumarka arrinta sameeyay iyo wixii dana ay guud iyo akhbaaraha guud la isticmaalo waxa weeye waxa weeye wancan Ethiopian taasoo oo xabashida loo sheegay inaad dad xuduudka Itoobiya ka baxsan ama xuduudka ogaadeen ka baxsan baa la xiriirada Soomaaliya taata la gabayo anaga ay garan la kulmayna iyo biniga taasoo oo deer u ardiyeen ugu dambeyn Cadaani Hurmooge afhayeenka ururka ONLF ayaa ka hadlay qaabka ay ugu wajihi doonaan doorashada 2020 ka dhacaysa dalka Itoobiya iyo qaabka ay abaabulka u galayaan si fiican u diyaariyay shacabka Soomaalida dhamaantii taageero ka haysanaa goboladana abaabul fiican baa ka socda xubno fiican oo ay ka jiraan hawsha ururkana waa la ballaarinayaa gobolada dhan booqashaan ku tagaynaa fariinta ONLFna waa loo qaybinayaa sidaan doonayna doorashada u gallo waxaan doonaynaa qabana doorashada kadib doorashada ONLF inay ku soo baxdo xal bay dadka Soomaaliyeed u tahay nabadda Geeska Afrika ee Soomaaliya iyo Itoobiya dhaxaysay Soomaaliya iyo Abasiiniya arrintii ogaadeen iyo Soomaaliya state iyo Soomaaliya galbeed ka taagnayd ONLF marka iyadaaba ka amoontahay peace ambassador Soomaaliya iyo Itoobiya inaad ku xidhno Itoobiya in faragelinta ay ka deyso Soomaaliya arrimaha Geeska Afrika inay degaan nabadgelyada gobolkan inay degto Soomaali iyo Abasiiniya inay kala degaan Itoobiya Soomaaliya inay kala degaan oo jiyaan kiyeeru waa marka waa la filayaa mid ka timaado weeye doorashadana sidaas aan u tegaynaa haddii aan yiraahdo dadweynaha Soomaaliyeedna waxaa rabaa xuquuqda uu ku leeyahay Itoobiya si qurux badan u qaato dhulkiisana sayidka ahaado gacantiisana ku jira asaguna ismaamulo dhaqankiisa iyo dhaqaalihiisa iyo horumarkiisa dhaqan dhaqaale aqooneed caafimaad walba inuu ka dhismo
ummadaha la sinmo lugihiisa ku istaagnaado ugu karaa badnaa dadka dadyoga geedka Afrika ee waxa Ethiopia ayaa ku jira maanta marka fariinta oo la dadweynuhu la socdaa meel walba waan geenaynaa ilaa hadda fariimaha noo soo baxayana taageerada boqolkiiba boqol bay dhaafaysaa